يعني ما بنان بحي كرتين الشباباتين يعني وحاتين يدي بكون معارض. kani waa muuqaalka murugada iyo naxdinta leh ee ka imaanaya suuqa Buulaxuubay ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir halkaas oo ganacsatada deegaanka oo ay ku jiraan hooyooyin da' iyo aabayaal waayeel ah ay qoraxda u taagan yihiin si ay codkooda u gaarsiiyaan mas'uuliyiinta dalka hadiiba damqasho ay ku jirto sida ay sheegeen هديبكون وربنا إيا هديبكون وحن جرنا نلو شيغا ganacsatadan ayaa sheegay in dhulkoodii ganacsi si awood leh looga saaray isla markaana aysan jirin cid u naxday ama ka damqatay daruufihii halkaas ku haystay qaar ka mid ah waayeelka oo aan hadal badan karin ayaa ilmada ka soo daadatay iyaga oo ka sheekeynaya sida ay noloshoodii u burburtay halka hooyooyinkana ay codkooda u adeegsanayaan baryo iyo hadallo qiiro leh maadaama suuqan uu ahaa mid noloshooda ay ku tirsaneyd sida ay warbaahinta u sheegeen waxayna dawladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir ugu baaqeen in si degdeg ah u soo farageliyaan arrintan oo laga yaabo sida ay sheegeen inaysan ka warqabin si waayeelka iyo hooyooyinka murugaysan u helaan dhulkoodii iyo noloshoodii ay ku tirsanayeen waxaana la yiri wala inay dhisa oo jiingada laga biina oo waxa laga sameeynaa guri sar laga sameeynaa 3 bilood alaabtaan banaanka taala waxba ma hayno inaan dhisana waa naloo diiday wax noo dhisaana ma hayno marka waxaan ka codsanaynaa dawladda sharafta leh iyo wax kastoo maaragtay aqli leh waxaan ka codsanaynaa dhulkeenaas dhibaatana la ku haya ganacsatada soo hunguriyeysay meel kasta albaab uga soo furatay meel kasta mahamiin kasta dalaal iyo waxa wareegaya iyo dad maaragtay doonaya marka waxaan ka codsanaynaa dadkeena sharafta leh sida gudoomiyaha gobolka dhulkaas inuu madax baneeyaan oo na siiyaan oo noo cabiraan oo inagu soo wareejiyaan shalasay nooga qaadeen alaabteena banaanka taala wax aan hayna malaha 250 dabakaaya ayaa meeshaas laga jabiyay ummadii laga jabiyana banaanka dhooban yihiin kawaankii banaanka yaala qudaartii banaanka taala ganacsatadii banaanka taala shalay dad waxay ahaayeen sharaf leh oo ganacsato ah oo waxooda hayso oo dawladdu canshuur ka qaadato maantana waxaan nahay dad dawarsadayaal ah banaankan dawarsanayna maantay marka fadlan waxaan ka codsanaynaa in arrintaas soo faragelisaan oo noo imaataan oo arrintaas wax ka qabataan ayaa in ka codsanaynaa dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa dawladda waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa dadkoodii baan nahay masaakiin baan nahay dad masaakiin oo maanta xoolahooda banaanka la dhigay oo aan la ogeyn waxay maanta ku sugan yihiin roobka da'aya aan laga warqabin oo roobka soo socda laga warqabin oo dadka masaakiinta maartay in maanta garab la siiyo madaxweyne garabna si oo ra'iisul wasaare garabna si oo isha gudoomiyaha gobolka garabna si ilaahay dad ka cabsatay garabna si oo na soo fargeli oo ummadaan dhibaataysan oo ummadaadii oo meeshan daadsan aad maanta soo garab taagtiin oo waxay maanta ka cabanayaan dhibaatada ay qabaan maanta garab istaagtiin waxaan nahay cabasho waxaan nahay Buulaxuubay waxaan nahay dadkii nabadda waxaan nahay dawlad ku dhool waxaan nahay dawlad taageerayaal suuqa Buulaxuubay oo diyaabkoon 74 qodxaha ka xarnay oo geedaha ka gurnay ayaa nagala jabiyay qodxaha ka xarnay oo geedaha ka gurnay nagala jabiyay adin la jabshay هديبكون وربنا إيا هديبكون وحن جرنا نلو شيغا أبين والبا وحا سعود ganacsatada iyo dad هديبكون منين dhaafiyaan raba dad inay gataan raba هديبكون gudoomiyaha waana meermeera hadii aan maartay yani meeshooda u tagna wuxuu leeyahay yani ma banaan bixi kartiin al-shabaabatiin yani waxa tiin هديبكون mucaarad waxyaalo noocaas oo dhibaataan haysta marka waxaan rabnaa inuu gudoomiyaha sharafta leh dawladda هديبكون yani meeshooda intay ka kooban tahay in la yimaado nagala soo gaaro 3 bilood iyo jajaba joognaa هديبكون waxaan rabnaa inaan soo farageliyo madaxda sharafta leh inaan soo farageliyaan waxaan codsanaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Mongab inuu soo farageliyo anaga waa yani dulmagnahay guriga yani dhulkaan beeca ku jira inaan soo farageliyo yani lawaanada sharafta leh lamaantooda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha
waxaan codsanaynaa inaan soo fargeliyo waa dulmanahay alaabtaan maqaasin u gelin waa dhacday taariikhdeeda waa dhacday mufaad hilibka banaanka lagu gadooyaa marka waxaan codsanaynaa haddaan nahay ganacsadada Buulxuubey inaan soo fargeliyo madaxa sharafta leh waxaan u nimay saaka isugu soo baxnay meeshaan barxaddi suuqa Buulxuubey oo in 3 bilood aan banaanka taaganahay oo orax iyo kuleyl iyo roobna oo na soo haayo waxaan adduunka codsan wax umada Ilaahay ka cabsanay oo dawladda ka codsanayna inay maaragto noola fasaxo dhulkeeni ilaa shirkadaana dadaan haysto waxaan haystana wax islaan hadaan waanira ma ay waxba ka sheekay laakiin waxaan u baahanahay maaragta in nala soo farageliyo dawladda sharaf kale waxaan ka codsanaynaa dhulka yaga in nala siiyo oo aan waxba nala ku xirinin oo shirkad nala ku xirinin oo cid kale nala ku xirinin tabar ma hayno haddii shirkad nala ku xiro ma bixin karno ma hayno masaakiin baan nahay ma awoodno ya waxaan awoodno ma ahan ma awoodno marka yaan wax nala ku xirin Ramadaan waa soo socotaa maxaa Ramadaan lagu gaaraaba ya Ramadaan ba maxaa waxa yar xuushay nabigi dabaysatay hortiis baxaarka cunahay waaba dhimanay maxaan ba soo qad ku gaarnaa maxaan ba waqti kale ku gaarnaa waxaan rabnaa gudoomiye maanta Buungaab inuu na soo gaaro dawladda sharafka in magacaynu gaaro inaan waxaan qabnaa ay gaaraan inaan waana la caburiyay 2 goor aan rabnaa inaan banaan baxna caburus baan ku jirnaa ilaahayga caadilka aan u sheegaynaa ilaahay gacanta sareeya hana saaro ilaahay umad noo soo adeegtaa noo keeno Buungaab waxaan ka rabnaa suuqyaal badan tagtood ka joojisay annaga waa nala jabiyay suuqa Buulxuubey aan joognaa waa dhibanahay ilaahay waxaan ka baryaynaa masdar khayr ilaahay inuu na siiyo anigu waa xanuunsanay ma hadli karo ilaahay awoodiisa in si degdeg ah noogu soo gaarto si degdeg ah inaad noogu soo gaarto codkeen markuu ku soo gaaro inaad si degdeg ah noogu soo gaarto rabaa Buungaab waa gudoomiyaha maarta Buungaab iyo maarta dawladda sharaf kale madaxweynaha ha gaaro maarta xildhibaanada ha gaaraan qof walba muslim oo muuminiin oo muslim oo wax noo qaban kara maarta ha gaarto arintaas danyartan ayaa ku dhawaad muddo 3 bil ah waxa ay ku shaqaynayaan suuq isku raran ah oo ay ka dhalan karaan cudurrada noocyadooda kala duwan mana jirto ilaa iyo hadda maamul dawladeed ama gobol ama xitaa degmo oo ka damqaday noloshoodan isku raranka ah iyo suuqan oo ay wax walba ka suuroobaan sida ay sheegeen internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha